السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا دمان كسو دوادا channel كيغا منو هوم وانيغو منو maanta maasha allah waxaad u jeedaan waa xalwo aad iyo aad macaan aad iyo aad u fudud maasha allah ayaan jeclaystay in aan idinla wadaago iyo sidaan anigaan u karsado sidaad arkaysaan inaba caadi ma ahan aan ku dhahay maasha allah lagama sheekeyn karo idinkan waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysataan oo soo tijaabisaan maasha allah marka halkiila ayaan rabaa in aan idinla wadaago sidaan u karsaday qiyaastan insha allah waan idin sheegi doonaa hoosna waan kusoo qori doonaa asxaabta ka faa'iidaysi wacan haddana videogeeni ayaan bilaabanaynaa rangadii ayaan diyaarsanaynaa marka halkaan waxaan kusoo diyaarsaday waxaa waayey 130 gram oo warango ah ayaan kusoo diyaarsaday waxaan kaloo isticmaali doonaa saxfaraan isticmaalayo marka kalarka gaduud ayaan isticmaalayaa oo maxay bariiska lagu darsado kalarkaas gaduudka ayaa maasha allah aniga aad iyo aad cajibiyay kaas oo waxaan ku dari doonaa qaandada yar oo wax yar dhiman ayaan ku dari doonaa ma buuxinayo kulli waxaan kaloo ku dari doonaa 50 mililiter oo biyo ayaan ku dari doonaa maasha allah ama 2 koob biyo ayaad ku darsan kartaa 2 koob biyo intaan ayaan isku qasaa si fiican ayaan iskugu dhaxgelinayaa adeegii kale tan waan soo diyaarsaday si fiican markaan iskugu qasno insha allah dabka ayaan aadeynaa ila socda asxaabteena ugu cusubna channelkeena kusoo dhawaada channelkiina waayay subscribe iyo like iyo comment iyo share inta baa naga hilmaamin dhiirigelin ayay inoo tahay digsigeena ayaan soo diyaarsanay waxaan ku shubayaa marka 1 litir iyo bar oo waxaan ku shubi doonaa biyaha markaan ku shubo waxaan ku shubi doonaa 2 xabo caleen ayaan ku shubayaa biyaha waxaan rabaa color yani shaahiga amal in uu yeeshto caleenta waxaan rabaa maasha allah in ay si fiican biyaha ay u dhex gasho kadib ayaan maxay sokorta aan ku shubayaa caleenta markii aan ka bixiyo kadib ayaan sokorta ku shubi doonaa insha allah kiilo marka labadii halkii kiilo oo xalwo waxaan ku kariyaa totally markii la isku daro 2 litir oo biyo ah litir iyo bar waa hadda ka digsiga aan ku shubay barna waxaan ku soo qasay warangadii ayaan ku soo qasay marka 2 litir biyo ayaa waxa ku karinaysaa kiilo xalwo marka waa kana maasha allah caleentii waan ka saaray wili dabkii biyihii muusan soo karkarin waxaan ka gaarsiinayaa marka kiiladii oo sokorta ayaan ka gaarsiinayaa waa 1 kiilo sokor ayaan hadda ku daray intaani markaan si fiican aan iskugu qaso ee sokorta ii dhalaasho kadib ayaan ku shubi doonaa warangadii oo ii diyaarsaneed oo aan soo qastay waxa aad iyo aad muhiim u ah warangada intaadan ku shubin waa inaad dhowr mar aad qaandada marsiisaa oo yacni dabada baaquliga wax inaysan ku dhignin marka waa kan maasha allah waan ku soo shubay warangadii waan ku soo shubay wixii oo dhan hadda halkan ayaan ku shubay subag iyo saliideedina waa ii diyaar marka waxaan sameynayaa xalwada maasha allah hab yar oo fudud ayaan idinku sharxayaa aniga aan ku karsado waqti badanna igama qaadanayso maasha allah man iga halaabayso jikadana ma ka halaabayso hadda sidaani markaan isku dhaxgeliyo intaysan soo karkarin waan daboolayaa xalwada daboolkeeda ayaan saarayaa maasha allah adiga 20 daqiiqo markay ka soo wareegto waa kana daboolkii ayaan ka qaaday daboolkii markaan ka qaaday waa walwalaaqayaa geesaha iyo maxay dabada digsiga inay xalwada iga dhigto ma rabo marka waa daboolaysaa 20 daqiiqo mar ayaad u soo laabanaysaa waa qasay haddana waa daboolaysaa ilaa ay biyihii ay ka gursadaan waan dabooleynaa gurigana maasha allah ma ka halaabayo mana ku gubanaysid 20 daqiiqo kale ayaa ka soo wareegatay xalwada hadda waad arkaysaan maasha allah waxaa dareemayaa marka hadda in biyihii uu yaraaday sidaas darteeda waxaan ku dari doonaa marka saliid ayaan ku dari doonaa waa saliid ugu horeysa aan ku darayo waa ugu yaraan markii 40 daqiiqo dabka ay saarnaato ayaan maxay ahayd ku darayaa wax yar oo saliid ah xalwada maasha allah inta aysan gursanin ayaan jeclahay in aan ku daro saliid sidaas darteeda maasha allah yani xalwada waxay noqonaysaa mid jilcan qatar ayayna kugu soo baxaysaa iyo macaan marka xalwada si aysan kaaga adkaanin markii cabaar ay dabka ay saarnaato oo biyaha ay gursan rabto waa in aad ku bilaawdaa saliid inaad ku shubtid marka hadda si fiican ay horta iskugu walwalaaqayaa si fiican markaan u qaso kadib
ayaan ku darayaa saliid yar ayaan ku darayaa. marka waxaan ku daray adiga koob halfkiis ayaan ku daray. haddana waan isku qasaa. markaan isku qaso waan daboolayaa. maasha Allah, xalwada waxay kusoo baxaysaa inaba caadi ma ahan. waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ah markaad xalwo aad karinaysid dabka inaadan aadan u dheereyn. waad arkaysaan digsiga mar walba aan saan u walaaqayo, yacni digsiga dabadiisa igama dhegaysa xalwada. dab waxaan ku karinayaa oo dhexdhexaad, aadna ma u sareeyo aadna uma hooseeyo. dab dhexdhexaad ayaan ku karinayaa. maasha Allah, xalwada marka si khatar ayay u karsamaysaa, mana kaa gubanayso. marka hadda wax yar kale waan dabooleynaa. 20 daqiiqo kale ayaan daboolay. hadda waa kana maasha Allah sidaan ayay kusoo baxday. waxaan rabaa marka hadda subag yar inaan ku daro. subag ayaan ku darayaa sababtoo xalwadii maasha Allah way sii karaysaa, biyihii ayaa sii yaraanaya, way isku imaanaysaa. waxaan rabaa marka subag inaan waqti fiican aan ku daro maasha Allah si xalwadii u sii jilcado. marka hadda waa kana waxaan ku daray bakeeri halfkiisa oo subag ayaan ku daray. subag waa kana maasha Allah si isku qabsanaysa waa u jeedaan. intaysan gursanin ka hor ayaa subag aan ku daraa. marka hadda maasha Allah waa kana waad walwalaaqaysaa. xalwada yacni mar walba inaad kor taagnaatid ma ahan 20 daqiiqo. dab macquul haddaad ku karinaysid saacadna aad saarinaysid 20 daqiiqo mar 15 daqiiqo mar inaad fiirisid. waqtiga ugu dambayso ayaad u baahan tahay wax yar inaad kor taagnaatid. maasha Allah, haddana waa kana subag markaan ku daray saliid yar kale ayaan ku daray. bakeeri halfkiisu saliid kale ayaan ku daray. maasha Allah, haddii aad rabtid subag waad ku badsan kartaa. aniga khaasatan ma jeceli, marka caraf yar ayaan u isticmaalaa. laakiin adiga qiyaastaada iyo sidaa jeceshahay. maasha Allah, hadda waa arkaysaan xalwadii ugu yaraan hadda waxay saaran tahay saacadii waxay saaran tahay. waxay bilowday in maxay ahayd saliid ay soo tufto. maasha Allah, saliidda markay bilowday inay soo tufto xalwadii way yacni way noo bislaa rabtaa. wax yar noo dhaman, waqti badan nagama qaadanayso. markay saliidda saan usoo tufto ayaa aad iyo aad muhiim u ah inaad xalwada aad kor joogtid oo mar walba aad la socotid. saliiddan hadhow waad iska miiraysaa, taasi dhib ma lahan. marka maasha Allah, hadda sidaan ayaan u wadaynaa. waxaan kaloo ku darayaa marka hadda jooskii ayaan ku darayaa, maadaama ay saliiddii ay kor soo marayso. saliidda mar walba ay kor soo marayso xalwadii wax yar ayaa u dhiman. waad arkaysaan sida isku qabsanayso. waad arkaysaan maasha Allah, digsiga maysan iiga dhigin. maasha Allah, xalwada waxaa la rabaa inay saan isku raacdo. maasha Allah, hadda waqti dheer inoo ma harin. marka maanta dhan intaan ilaa inta ay ka degayso waa inaad kor taagnaataa oo mar walba aad walaaqdaa. dabki markaan oo kale lama daboolayo, mana ka tegaysid sababtoo xalwada markaan way guban kartaa. wax yar ayaa u dhiman, waa diyaar. saliiddii waan ka miiray, saad arkaysaan saliiddii badneed waan ka miiray. saliid badan hadda kor kama taalo, haddana aad iyo aad ayay digsiga u kulul yahay, iska ilaaliya insha Allah. waatana maasha Allah, xalwadeennii waa inoo diyaar. waxaan rabaa marka insha Allah saliid yar inaan ka miiro. saliid yar markaan ka miiro wax yar kale ayaan sii walaaqayaa ilaa ay xalwada si fiican ay isku qabsato. maasha Allah, kadib xalwadeena waa ka dejinaynaa. forum ayaan diyaarsaday. forumkaasi ayaa maxay ahayd ku shubayaa, ay ku qaboobaysaa insha Allah. ilaa caawa waan idin tusi doonaa insha Allah xalwadeeni sidii ay kusoo baxday. idinkan waxaan rajeynayaa asxaabta inaad ka faa'iidaysataan oo channelka maxay maasha Allah taageeraad u noqotaan. asxaabtiina aad la wadaagtaan. maasha Allah, haddii aad tijaabisaan ila soo wadaaga xalwada aad samayseen iyo sawiradiina maasha Allah. hadda marka wax yar kale ayaa inoo dhiman. waxaan isku soo laabanaynaa xalwadeeni markaan dabka aan ka dejiyo ee inoo qabowdo. maasha Allah, tabaarakallah. asxaabta waatana xalwadeena sidaan ayay noqotay. kusoo dhawaada, inaba caadi ma ahan. muuqaalkeeda, carafteeda, maxay dhadhankeeda intaba caadi ma ahan. maasha Allah, marka kiilo kaliya ayaan kariyay.
marka asxaabta waatana kiiladii sidaan ayay nagu soo baxday inaba caadi ma ahan waan soo jarjaray way soo qabowday waatana marka xalwadeeni ka sheekeeyay idinkana sidee u aragtaan commentiga ila wadaaga haddii aad soo tijaabisaan maasha Allah asxaabta ila soo socodsiiya waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan oo aad ila socotaan oo aad ii daawataan iyo commentigiina quruxda badan leh maasha Allah jazakallah khair ayaan idin leeyahay dhammaan asxaabteyda ku xiran channelkayga oo taageero ah asxaabta cusubna aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa insha Allah waxaan rajeynayaa inaad videogaad ka faa'iideysateen asxaabtiina iyo familiyadiina ila wadaaga aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin insha Allah ilaa video kale ku kulmeyno khayr ayaan idin dhaafay assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.